السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أول هالسنتين يستيا الله وبرنامج كحلقة اللي يوصل ديارية نيجو إنجنير عبد العزيز محمد حسن. ما أنت إن شاء الله تعالى برنامج كنا وحقوق دونا ولو حنقولنا one dimensional array and single dimensional array وحن هروح هنوصل ديارنا سي لوصو سي user كوصل جليو أنت النمبر ودونا يسايس كوربو كريتو أنت النمبر وصل جليو كدينا وصل دعوة أنت النمبر ما أنت لو حنك نوكل هايا another program الوصل من arrays program كم محنو شيء أمر write a program to interchange the largest number and the smallest number in the array. أنا قرأت program كاسو سهيلايو number كوين إيه number كويا كدينا إسقاط سينايو تصالح وحصل list of array وحقول تطا array index أيوة وحكوها كيديا index 0 وحقول تطا 100 index 5 وحقول تطا تصالح 20 100 أيا وين 20 أيا وين index 5 وإن ليك أنا 100 index 5 وحنا كجرو 20 جنيه وإن ليك index 0 إن ليس لافي number كوي position كوكجرو إن number كوي position كوكجرو إن ليس لافي ليك position كلية number كوي لقى بدله كان يرلقي كان يرن position كسر لقى سوق هذا كان وين لقيه سيدو الله سميع أو كان سوق عصنا عارف كأن قرنه يقدر فعله أوكي محمو بهنا نكو هنا عشرنا سايز أري سايز كلام أرتو أري وأنا عشرنا أري يوسر كأكو حين تقييمه نوسو جلي يوسر كوي نوسو جلي أيام سمينه أوكي يوسر كاس نوسو جلي أوكي معاك لو بهنا سايز كنا يوسر كاسو جلينا سايز كاسو جلي لا أنتو سو جليو يوسر كان نوسو جلي وحاك لو بهنا هني waxaan kala u baahnaan loop wax noo shaqeeyay waxaan kala u baahnaan markaan rabno in labada aan sameeyno markaan rabno tirada weyn numberka noogu kaydsan inaan bedelno oo kan yar ku bedelno number oo temporary noogu soo keediyo waxaan dhahnay temporary noogu sii hayo waxaan u baahnaanay qiimaha la soo helayo position-kooda leeyahay position-ka qiimaha la soo helayo small position-keeda iyo large position-ka ku jirtay siina large position-ka ku jirto waxa kale u baahanahay isla sidii small-ki iyo large si loo helayo intaas ayaa u baahanahay intaas variable ayaa adeegsan doona insha Allah taala aan bilowno user kan dhahno noo soo geli size ka rabto enter size of the array saacada kan oo ku soo baranay scan f waxaan ku qabanaynaa wuxuu soo geliyay array-ga ayaan waxaan ku qabanaynaa size abersan kadibna variable noo ahay oo size ah kadib waxaan sameynay printf enter percentage d si aan ugu soo muuqato waxa la soo gelinayo kankii ka horeeya hadaad rabto in array faanto bilaaw array waa xiriir cashirka hore soo faan kadib si array qiimo loo siiyo kadib si keyboardka loogu soo geliyo hadda waxaan ka hadlaynaa markay step waa adoo cashirka hore soo fahmi way adag tahay inaad kan fahanto enter elements of array isku xiriirina cashirada marka waxaan ka codsanaa inaad kan dad faham weyso aad la soo qabsato cashirada kan ka horeeya ku soo xirmato okay enter lix element ama todoba wuxuu userka soo geliyo ku xiran tahay okay for loop aan ka bilaawno I waxay la eg tahay 0 I intay ka yartahay size ko asiga dalbaday userka I plus okay maxaa la qaban wuxuu soo geliyo scan f aan dhahnayna percentage d aan dhahayna userka wuxuu soo geliyaa la qaban abersan array I aan ku qabsan userka wuxuu soo geliyo okay userka waxa uu soo geliyo waa la qabto Soomaa markii la qabto waxaan dhahaynaa
userka wuxuu soo geli 5 tusaale wuxuu soo geli karaa laakiin 5 number soo geli 5 number array 0 number ay ahaa array 1 number ay ahaa array 2 array 3 array 4 afartaas ay ku keedsan tusaale aan dhahna markii small oo ah small inta waxaan siinaynaa 0 large inta waxaan initial siinaynaa 0 small waxay la eg tahay marka array indexkeeda uu yahay 0 hala ekaato array ugu horeyso small igu soo large sidoo kale array ugu horeyso waxay dhigtaa 0 labadoodaba sidaa ka dhigay si loo soo helo si markii la isku barbar array kuwaada waxa dhan la barbar dhiga okay intaas markaan sameeyay kadib waxaan kala sameynaynaa small position ka asigana mar walba asigana waxa iga dhigaysaa small position kaasi everlay is bis small position equal waxay leedahay 0 large position asigana large position asigana everlay okay hadda bilaabo for I maxaa ka bilaaba I 0 ma ka bilaaba maxaa yeelay 0 inta ugu sii keediyaan soo ma already small index 0 waxa ku jiro small kaas ay ugu jiraan marka ay waxa iga bilaawdaa 1 ay inte ka yar tahay size I plus haddeera taasi faan u fiiri meeshaan ka bilaabanay marka if array meeqa waay indexka koowaad waay smallna muxuu ahaa indexka labaad small wuxuu ahaa index 0 kana index 1 index 1 hadday ka yar tahay index 0 small waa index 0 soo ma index 1 hadday yar tahay smallka ii bedel smallka wixii ku jiro iga bedel waxay ugu shubtaa smallka wixii ku jiro maadaama laga yaryahay array ugu shub intaas waa la wadayaa marka ma garat array ugu shub kadib position kiisna waa baa leelaba small position ii marka small position kiisu waa haya isla marka waxa la eg tahay ay la eg tahay position ka ugu yarna waa position ka hadda la taagan yahay oo ay ah marka inta lagu gidiyo small position kiisa ayda waxay tahay 0 100 2 3 waxay tahay ayaa lagu sheegay intaas waxaan noogu sugnay waxaan ku soo helnay numberka ugu yar aan tagno marka asina aan soo helno large asina waa la mid if waxaan leeyahay array hadda waxa raadinay small soma haddana greater than large muxuu noo ahaa index 0 iyo index 1 index 1 hadday ka weynaato index 0 yaa weynaa index 1 weynaa soma markay index 1 weynaato large ala ekaado array kadibna waxaan leeyahay large position waxaan leeyahay large position waxaan siinaynaa I hadda marka waxaa ku harta bis inaan labadooda wacdo horta saan u ogaano positionada in la hayo in kale okay printf the smallest of these numbers are kan ugu yaraa laga rabaa inaad soo hesho kan ugu yar waa kan small kan ugu yar maana inta ugu shub small largest na waa kan ba inta ana ko biya largest loo ku bedelaasayna inta waxay u dhigtaan percentage d ha ka ilaawin percentage d/m percentage d/m intaan aran gareynayna intaan fiirinayna waxa noo soo baxay kadib ayaan waxaan bedeleynaa bedelka kadib aan galeynaa intaan noo soo garay intaan noo saxan tahay array position noo dheh .c bismillah
okay arraygo dalbada ninkan waxaa waaye shan qiimo soo geli waxaan soo geliyaa 1 2 3 4 5 kan ugu weyn maxaan ka rabnaa 5 kan ugu yarne hal the largest the smallest number 1 the smallest sababta ma taqaana labada variable waxaa waaye small inta waxaa laga rabaa marka inaa waco large hadda marka ma dhahayo intana the largest iga dheh maadaama inta kasoo koobiyey largest hadda markaan fiirino waxaan dalbanay size-ka 5 xabo soo geli 5 1 2 3 4 5 saa u jeedaan smallest of these numbers are 1 the largest are 5 waxaan soo helnay qiimaha ugu weyn iyo qiimaha ugu yar okay positionada ku jirto ma soo heli karnaa ha already positionada waxaa kaliya dhaynaa bis print f waxaa ii soo daabacdaa mid walba positionkiisa inta waxaan leenahay small position bis inta waxaan leenahay the smallest the position of smallest number the position of smallest of these numbers of this number is okay kalena maxaa leenahay the position of largest number the position of the position largest the position wow the position of largest number inta waxaan leenahay marka large number ay waa ku dheelaya kan in la koobiye la rabay waa iskaga dheelnay problem may kan ku wada the large in position keeda celi the largest number iskala the largest of these numbers largest kada inta imaa koobiyeyso position of largest number are inta dhe marka inta position haddana waxaa haynaa positionadooda labadaba positionadooda waa haynaa tusaale aan dhahno 5 number soo geli 5 number 9 8 7 6 5 number ku yar maxaa waay 5 number ku weyn 9 waxaa lagu dhahay the smallest number is 9 numberka ugu weyn waa 9 waa 5 position ku jira 9 oo 0 ah 8 oo 1 ah 7 oo 2 ah 6 oo 3 ah 5 oo 4 ah position ku jirana waa 4 numberka ugu weynna waa 9 position ku jirana waa 0 hadda marka waxaan isku bedelaa marka position 0 waxaan gelinaa numberka ugu yar position 0 numberka ugu yar meeqa hadda 5 waxa kaliya 9 waa soo wareejina waxa ka soo ridaa 6 hadda numberadaana sayta ugu dabaqeena 9 ka bilowna 5 ugu dambeeyna saa u fahanno interjange yaa sameynayna haddaan kala bedelayna insha Allah taala sifaay la soco waa cashir aad iyo aad muhiim ah programka inta badan program imtixaanada oo lagu qaada inta badan okay conceptiga muhiim ah inaad fahanto okay waxaan adeegsanaynaa variable temp hor u soo sheegnay temp hala ekaado waxaan ku shubaynaa array of largest number of large position inta ugu sii keedaa leenahay positionka temp largest waxa ku jiro tempkaas ugu baad macnaheena marka array large position wasina waxay ugu shubtaa maadaama uu faaruq yahay array large array small position small position array small position as waxa ku shubtaa qiimaha array xagga lagu sheegay array small position sina waxay ugu shubtaa array small position waxa ku shubeena temp oo lagu keenay
wixii area largest position ku jiri oo indexkeeda ku jiri term igu shub inta faaruq markay noqotay small as wixii ku jiri inta ku shub largest term waxa largest wixii ugu weyn small igu shub saasa interchange loo sameeyay hadda waa wada daawacayna for loop for I hala mid noqoto 0 I intee ka weyn tahay size I plus plus okay printf percentage d /n aan dhaho si ay u kala cadaadaan kadib waxaan sameynaynaa array ayaa wacinayna assalaamu calaykum intaas leeyahay okay saan u fahanno isbedelka meesha ka jira aan dhahno printf after interchange markii la kala bedelo kadib say noqoto waa after interchange /n okay intaan copy leh waxaa ka hormaraysaa positionka igu xiji okay aan rangareyna marka okay waxaan dhahnay 5 element isu geli waxaan ka bilaabnaa daa 9 8 7 7 6 5 waxaa la array waxaan rabnaa in la yidhaho the smallest of this number are 5 way indexkiisu waa 4 9 waa numberku weyn indexkiisu waa 0 5 9 meesha maxaa lagu bedelay 5 baa lagu bedelay waa aragtaa 7 8 ma la taamo waa sidiisa 7 ma la taamo waa sidiisa 6 ma la taamo waa sidiisa meesha maxay imaatay 9 kii ugu horeysa imaaday maxaa sameeyay marka kan ugu horeyso indexku ugu horeysa waxaan kala gudbiyay indexku ugu dambeeyay labada adina waa kala gudbi kartaa anything oo la xiriira waad samey kartaa labadana kala gudbir kartaa isku day waxaan waa logicaas mar hadaa fahanto oo iska fududahay waa anigoo ah engineer Abdiis Maxamed Xasan oo idin la sidaas nabadgelyo si aad ugu faa'iideysataan barnaamijka ugu xirnaataan fadlan ugu yaraan hal qof la socodsiiso barnaamijkeena u hirgalo oo noqdo barnaamij ummad badan ay Soomaaliyeed in ka faa'iideystaan ku caaw walaalka inuu helo journalkan oo 4 saaxiigan waa inuu dhalinyarada Soomaaliyeed ka qabjiro barnaamijka waa mar kale daciish oo idin leh siyaasi nabadgelyo aad u mahadsantahay